السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa qisa aad u cajaa'ib badan. qisadani waxay dhacday sanadkii lagu magacaabi jiray caamul fiil, sanadkii maroodiyaasha, wuxuuna ilaahay ku sheegay qur'aanka kariimka. daawo muuqaalka daawade si aad u ogaato qisadan la yaabka badan. magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan, halkanina waxaynu ku soo gudbinnaa muuqaalo waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheer gareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. carabtii ku nooleed aljaziira alcarabiya waxay u soo xajin jireen magaalada Makka iyagoo ku dawaafaya Kacbada. taasina waxay ka dhaxleen diintii Nebi Ibraahim calayhi salaam. arrintaasi waxaa ka xumaaday Abraha, oo Abraha wuxuu ahaa waaligii markaa xukumayay magaalada Yaman, wuxuuna ka dhisay kiniisad aad u weyn magaalada Yaman isagoo doonaya in kiniisadda loo soo xajiyo. balse waxaa la sheegaa in nin ka mida reer bani Kanaana in waqti habeen ah uu ku saxarooday kiniisaddii aadka u weyneed. Abraha arrintaa aad buu ugu carooday, wuxuuna go'aansaday in uu ka jarto reer bani Kanaana oo ahaa qabiil ka mida qabaa'ishii degnaa magaalada Makal Mukarrama, wuxuuna go'aansaday in uu ku soo duulo Kacbada si uu u burburiyo, isagoo qiilka dhiganaya ninkii ku saxarooday kiniisaddiisii. balse hadafkiisa wuxuu ahaa in uu qabsado magaalada Makka si uu ugu mid dhigo magaalooyinka ay xukumaan Kiristaanka. Abraha wuxuu soo kaxaystay ciidankiisii oo waxay ku socdeen maroodiyo aad u waaweyn, iyagoo doonaya in beydkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dumiyaan. waxaana la sheegaa in Cabdulmutalib oo ahaa Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee awowgiisa, uu u soo bandhigay adduun iyo maal aad u badan, balse Abraha wuu diiday oo wuxuu yidhi, anigu waxaan doonayaa in aan burburiyo Kacbadiina oo wax kale uma socdo. markii Abraha iyo ciidankiisii oo la joojin waayey ayna diideen wax kasta oo ka hor istaagi kara in ay burburiyaan Kacbadii Ilaahay, wuxuu Ilaahay ku salliday ciidan ka mida ciidankiisii. wuxuu Ilaahay ku cadaabay Abraha iyo ciidankiisii cadaab aad u daran. wuxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo diray shimbiro, kuwaas oo dhagxuun cadaab ah ku sita lugahooda iyo cafkooda. waxayna isku dayeen Abraha iyo ciidankiisii inay ka cararaan cadaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, balse cadaabka Ilaahay lagama baxsan karo. waxaynu ka faa'iidaynaa qisadani daawadayaal sharafta iyo qiimaha ay leedahay Kacbada, iyo sidoo kale waxaynu ka baranaynaa in awoodda Ilaahay cid kasta ay ka sarrayso. sidoo kale sanadkani waxaa dhashtay khaatamul anbiyaa Maxamed ibnu Cabdillaah, Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee. fadlan daawade muuqaalka laag inoo saar, siina sheer garay, taasi dhiirigelin ayay inoo tahay. qisadan oo dhammaystiran wuxuu Ilaahay inoogu sheegay suuratul fiil. الله أعلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.